الحمد لله رب العالمين وحلنا جامع يوسف كاهين وحنا يقول بجوج سومالان marka waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland dadkan rabshada wada inay dawladdu ka joojiyaan dawladana ay la shaqeeyaan uma baahnin buuq iyo qaylo madaxweynahana waxa lagu soo doortay dumaraadiyad marka dumaraadiyadiisaas ilaa intuu dhameysanayo ima la helayo maxay ahaydeen doorashadu ay dhacayso ina khalaasa wadanka la galiyo ma doonino xiranayo qurbajo xirina waxaan leenahay maxay ahaydeen arrimaha xildhibaan baa taaymaagtay maxay ahaydeen doorashada madaxweynaha waa doonaysa wadanka qaska diminka galinaysa ka joorji madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dadka telefishinada ka caaya madaxweynuhu ma istaahilo telefishinada laga caayo waa mujaahid waa nin wanaagsan ragii xamar ku noolaan barigii imika iska yimid ay baarlamaankan galinaayo doorashada doonayna taas ma suurtoobiso madaxweynahana waa waxaan leenahay xaal قاسنا هذا يقرب جوجا الصومال حتى مدحوينا محي هذين مشاهد مشاهد هذا كل شقة شخص رد بنا ونكوج علينا مدحويني مال كلا أو كنا نطمح إنه دل يدل بوحبات كقبطي ودوين كي هرمرنتي إذا ما دريتشي ودي تلفزيون دي عاديه بحبار الشديد دليرتي أود سيسي محي هذين أصيصي محي هذين شقوين ماريال وسيرك يجينو مركز دولة نانتو أنا صومر تمجرتو مركز دولة إذا حلينا يا نجا يارنا نجا قصصنا عرورين دي بدأ يدي شوغان هكا قصينا دت كان مساكين تي ودن كدجاني عرور توجوكتو هذا بريت هذا ريبورت كدو في ساعة عرور هذين في لام بيكون شوغان مركز هنا ودن كقصيد مبهنين دورشين سيد كويل سوى أذكتي markii hore waa lagu jeclaa imika waa lagu nacay inuu xadoonaysan inaad wadanka khalkhal gelisid dagaal gelisid wax ku noqonaya oo dulcad tagaya dambana ma jirto Soomaaliland way ka ilbaxday maxay ahaydeen nin siyaasi oo marba kiciye oo qaxooti ka dhiga dadka marka waxa leenahay wadanka si wanaagsan loo ilaaliyo dawladda hal la raaco wasiirada si wanaagsan u shaqeynayaan gurihiiba loo dhisayaa fooqayba batay nimcaan ku noolna ilaahay ma hadnaqara ayaa inaga raadinaya marka loo baahnaa in xabad iyo balaayo bood maanta burcana qaska adaa galiyay marka bal meeshay ka baxdaa waa bakala qaleen marka waxaan leenahay mucaaradka joojiya arrimahan wadaan iyo qaskana wadanka ku wadaan wadanka nabadgelyo joogta xamar waxa ka socda wada aragtaan wadankeenu waa nabad taagan yahay dadkii oo dhan baa soo degay dibadii waan uga wala nimid marka inaad qasna ku kicisaan ma doonino hadana qaxooti dambe siyaad barana laayeen magaalada inaad imikana siyaasiyiintu dadka kicisaan oo tiraadaan dawladda ku kac ma suuroobiso dawladana waa dawlad cadaalada waa dawlad si wanaagsan u shaqeynaysa waa dawlad maxay ahaydey mujaahidiina marka madaxweynaha waxaan leeyahay sidii hore u soo shaqeysay imikana noogu shaqeey 5 sano dambana adaan kugu celinayna waligood ha boodboodeen jiro joog oo ilaahay kula jiro waxaan leeyahay maxay ahayd ummadda Soomaaliland iska ilaaliya siyaasiyiinta doonaya inay igu kacsadaan awrka aan waxna idii qabanin bariintana ka dhoofaya Itoobiya hadhowta baxsaraay haday wax ka dhacaan wadanka idiga wadankeena ilaashada mana ogolin inay wax ka dhacaan khalaasaha maanta ka socdana waxa uu ku eedeena xusbada mucaaradka haday cirin la ridayo xildhibaanada soo taala 8 ka xildhibaan buu taala dawladna shaqo kuma leh in kale shaqo kuma leh 8 xildhibaan markii horeba saaray umba u taala inay maridaan ima idaayad taasi wax qabiyaarad iyo qabiil loo raacay kuwan sidaadiintana waxa leeyahay iyo duubka weyn sitay maalinba meel u ololeynayay maalinba jeeb doonayay in lacag loogu rido lacag ma jirto wadanka la qabsada shaqaysta aqaliintan maalinba qabiil hebel maanahay qabiil hebel ma baahnin dimuqraadiyad baan u baahnay waxaan u baahnahay midnimo marka waxa weeyaan aad iyo aad baan maartay madaxweynaha uu guwaabinaya istaji madaxweynuhu adu waxa tahay nin wanaagsan oo way araga mujaahida mariyadiya madaxweynaha umba wax sharciya wadanka ku fadhiya inta kale waa bilaa sharci madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka umba meesha sharci ku fadhiya oo kursigaas il doorasho xaqaa ku fadhiya waxa kale oo dhaw dhaceen 10 sano 15 sano fadhiyaan meeshii laga soo doortay wax uga qabtay dadka ma jiro ciidamada qarankana waxa leeyahay jiid hore jooga ee wadanka amaakiisa noo soo ilaaliya aad iyo aad baan inay taageersanahay adduunka kale bal waxay saysta arag markaas boqorada ingiriiska nin caayam yaad aragtay bal nin la soo doortay oo madaxweynaha oo wadanka u shaqeynaya ayay haddana maalin walba telefishinka caayaan oo leeyihiin waa caynkan madaxweynuhu ma istaahila caayan waa mujaahid iyo madaxweyne ku xigeenku marka labada nin baa doorashada ku jooga
sharciina ku jooga waddanka marka inta kale oo dhan waa bilaa sharci intay doorasho dhacayso nabadgelyada ha ilaaliyeen waddankana si wanaagsan ha u joogeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh